nimankani waxay ka yimaadeen nagob siday sheegeen 12 maalmood bay jidka ku soo jireen waxaanu ku kulannay koonfurta magaalada Hargeysa jidka isku xidha Hargeysa iyo Salaxley walaal imisa maalmood baa soo socoteen baa tiri 12 maalmood baan soo soconay ma 12 ku dhan way وقيل واد دبرتي سواد بو في عن تهايه halkii hore hilib ahaa gool aad wanaagsanaa way xaaladda ay ka dambeysay abaar badan baa uga dambeysay way saan isleenahay waxyaalo badan baa gala gaadhay baan isleenahay waxyaalo badan baa gaadhay baa isleedii badan baa gaadhay baa isleenahay way annaguna waan cagaagnay oo taraag uu nagu dheeraaday ma safarkii kugu dheerayd wiliga gashaaba ee geelka hayso barnaamij ku tagay socod inta halka ka soo bilowday garba intaan ka soo bilaabay garba intaad ka soo bilowday garba intaan ka soo bilaabay baan ku tagay barbaraan ku tagay way oo intee ku qaadatay deedna waxay u qaadatay 18 habeen bay ku qaadatay oo markaan ma geel baa waday geel baan waday way garba halkay u dhowdahay garba goday bay u dhowdahay ceel weyna laga xukumaa way marka saa geel ma kaxaya anigu ina maraan geel si raacnay way geel ma kaxaya oo geel nimka ma iibba markaa waa ii geelu way berbera waan geeyay way godayna waan geeyay oo markaa qaalinta yar ma la iibinayaa yana waa qaalinta yar waa la iibinayaa geel yar yar oo aarana ku jiray way arankii shalay baa la iibiyay waxa geel lagu iibsaday ma dhaxda halka dhaxda laga horiyay way qaalinkan marka meeray geel waa uu noqdo anagu noo soo haray dhulka soo marteen ma roobana dhulku uu roobanaayo wixii dhagax guud iyo imika fineen u dhaxaysay haay si wanaagsan buu roobanaa way laakiin dadku wallahi khatar buu ku jiray wadanku wadan saaciidadii ka tagtay weey haay dalool iyo qodax baa la joogaa wariyow adduunyadii waa kala xidhantay oo xanuun corona la yiraahdo ayaa soo baxay baa la yiri meel xanuunka wax ka maqasho walaal wax waan ka maqlay way maxaad ka maqashay marka ilaahay hay noo tashiriyo kulli xaga allayno inagu xisaabsanna waa runa ilaahay hay naga haye ilaahay maynu baryaynaa maxaa ka maqasheen waxaan ka maqlay kulli inuu dad badan wax yeeleeyay way oo siday dawladuhu u badan yihiin haay inuu wax yeeleeyay ma ka warhaynaa way waxaan leenahay iyagana ilaahay ka qaboojiyo haay innagana ilaahay inuu soo gaarsiiyo amiin Allah baryaynaa goday bari hore 95 kii baan tagay de laakiin gaaraan ku maray ilaa dhagax buur iyo qabri dahare iyo ilaa jigjiga deenta dir dhabaan uga sii gudbay waan gartay bariga col iyo abaar baa dhulka ka jiray waan gartay imika xaalku dhulka soo martay soo aha walaal wallahi dhulku waa nabadgeliyo waa habi ilaahay baa lagu xamdi way aadan baan abaal lahayn oo xamdi lahayn haay ilaahay inta lagu xamdiyo Hargeysa dadka lagu weysid oo ku gashid gaday haay hadan u soo leex cid wax ku siiso weeye cid ku tiraa soo weeco way wadanku waa nabadgeliyo ma sha Allah dadku waa walaalo ma sha Allah waa aabiyo hooyo meesha tagtid goosha ku taal ma sha Allah nabada ku taal ma sha Allah walaal bariga aad ii sheegtay inaad ilaa berbero u lugaysay intaad goday agteeda ka soo lugayso geel ka soo kaxaysay intee socoteen walaal waxaan socday 18 beri iyo 18 koodii maalmood baan socday gow waa lugeynaya qadim baan haa weliba waan orday way oo geel intee lag ba wadeen geel wuxuu ahaa 183 neef ah 183 buu ahaa oo marka geel la iibsado hadii alla yiraahdo waa noqonaysan Soomaa imika waa noqonaynaa hadii alla ka dhigo ku kale ma soo kaxaynay markaa geel kala soo kaxaynaysa ku kale ma soo kaxaynaya oo way marka geel bishii oo kale tusaale ahaan imisa goor baad timaadaa bishii oo kale adigu ama berbera ama Hargeysa ama goday bishii oo kale 3 jeer ama 4 jeer baa waan imaadaa oo noqod ah ha marka de laakiin hadii 12 maalmood kugu qaadanayso bishii sidoo imanayso marka adigu mar waxa laga yaabaa dhaxla in geel lagu iibiyo haay mar waxa laga yaabaa in Hargeysa soo gaarsiiyo mar inaan berbera geeyo mar dhaxdaba lagu iibsado mar badan baa hadaba dhaxda lagu iibsadaa laakiin geelu aad iyo aad buu qurux badan yahay geelu aad buu qurux badan yahay laakiin markii hore walaal aad uu ka sii wanaagsanaa maxaa tii igu celi intaa warkayga waad haysaa waad mahadsantahay walaal waad mahadsantahay caalamka ma taqaanaa warkaaga waa in intaan xitaa indhaha ka arag dhagtay ka maqashay waad mahadsantahay si fiican warbaahin
waad mahadsantahay walaal nasiib wanaag aniguna maanta waan kula kulmay khayr baan kuu rajaynayaa ilaahay idinkii walaal bulshadana si fiican baan u gaarsiinayaa ninkaasaan arkay oo hor istaagay oo si dheer hor istaagay baan gaarsiinayaa ما شاء الله خير بقى ولا كل رجيني واي ولا عاونا فرحت بدن بان لسه حنين خير بدن بان دي رجيني يا ولا نبدقلي